waxaan fadhinay qol aniga iyo qaar kamida wasiiradii la socday waxaan noo soo galay madaxweynaha Uganda Museveni wuuna salaamay anigu wuxuu yiri ma waxa tahay ra'iisul wasaarihii farmaajo markaas waxaan ku yeeray waxaan ahay ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed wuxuu yiri laakiin farmaajo ku magacaabay markaas aan yiri ha wuxuu yiri hadii aad Soomaali tihiin oo aad isku aftihiin oo isku dhaqantihiin oo isku diintihiin oo aad dadkiina leenaysaan ma garanayo si aan kula hadlee wuxuu ugu yiri naarta af Ingiriis buu ku hadlaayay naarta maxaa af Soomaali lagu yiraahdaa marka wasiiradii la fadhiyay qaar kamida qaarna waxay yiraahdeen naar qaarna waxay yiraahdeen jahannama markaas uu yiri Soomaaliyay miyaadan jahannama ka baqaynina maadaama aad leenaysaan Ilaahay caruurtiisa ku dhawaad 30 sano Soomaaliyay waxaad leenayseen dadkiina miyaanad Ilaahay ka baqaynina inuu idin ciqaabo waa qof aan muslim ahayn oo madaxweyne wadan weyn ka ah ayaa sidaa yiri anigoo ka xun ayaan wasiirada qaar kood iyo anigu maalinta ku xigtay waxaan la kulanay madaxweynaha Suudaan markuuna salaamay uu soo dhaweeyay ayuu yiri Soomaaliyeey waxa tiin isku af iyo isku dhaqan iyo isku diin Ilaahayna wuxuu idin siiyay khayraad badan iyo dal aad u qurux badan maxaa idin ku dhacay marka ilaa wax looga jawaabo ma hayna intaan aamusnay dadkeenii meesha fadhiyay oo wasiiray aniga iyo taliyaha nabad sugidda ila socday markaasuu su'aashii isaga nooga jawaabay markaasuu yiri anaa garanayo waxa idin ku dhacay shaydaan baa madaxa idin ka galay hadda waa sidaas ma turjumaa xataa shaydaan baa madaxa idin ka galay horta koow annagu waxaan isu haysanaa inaan ka kala nimid gobollo kala duwan oo ku yaala dalka Soomaaliya gudihiisa waxaan isu haysanaa inaan nahay qabiilo kala duwan waxa laga yaabaa in qabyaalad ama dan gooni ama dan gaar ah ay baabiisay qarannimadii